Assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta. Muxuu yahay wejiga cusub ee ay yeelatay xiisadda Hindiya iyo Shiinaha? Bilihii la soo dhaafay waxaa jirtay xiisad colaadeed oo u dhaxaysay wadamada ku hubaysan nukliyeerka ee Hindiya iyo Shiinaha. Xiisaddaas ayaa hadda u muuqata mid weji hor leh sii yeelanaysa xadka Ladakh ee ay muddo dheer labada wadan ku muransanaayeen, iyadoo mid walba uu sheeganayo lahaanshaha dhulkaas. Waxaa dhowaan bahan socdayba dadaalo lagu doondoonayay iyo xurgufta lagu soo afjarayo wadahadallada, isla markaana ay militariga labada dal ka baxaan deegaanada xadka ku yaala. Laakiin xiisadda colaadeed ayaa mar kale cirka isku soo sariirtay 29kii bishii la soo dhaafay ee Agoosti, kadib markii ay soo cusboonaadeen dhaqdhaqaaqyada labada ciidan. Hindiya ayaa maanta soo saartay amar wadankeeda ay uga mamnuucday 118 barnaamij oo ah kuwa taleefanada lagu isticmaalo oo dhammaantood laga leeyahay Shiinaha. Barnaamijyadaas waxaa ka mid ah ciyaarta ay dhalinyaradu aadka u xiiseeyaan ee loo yaqaano PUBG, isbarbardhigga awoodda militari ee Hindiya iyo Shiinaha. Haddaba ciidamada Hindiya iyo Shiinaha oo feer iskula tegay markii ay labada xuduud wada joogeen. Muranka Hindiya iyo Shiinaha oo 500 oo eray lagu soo koobay. Hindiya ayaa dhowaan Shiinaha ku eedeysay inuu ku xadgudbay heshiis ay labada dhinac ku gaadheen wadaxaajoodyadooda ugu dambeeyay. Waxay xukuumadda Delhi sheegtay in Shiinaha uu qaaday tallaabooyin militari oo calo kicinaya si uu u beddelo xaaladda ka jirta xadka Ladakh. Ugu yaraan 20 askari oo Hindi ayaa ku dhintay isku dhac labada ciidan gobolkaas ku dhex maray bishii Juun. Shiinaha dhankiisa ma uusan sheegin in halkaas ay askar uga geeriyoodeen. Labada dowladood ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu sameynayo dhaqdhaqaaqyada kicinaya dagaalka. Beijing dhankeeda way beenisay inay ku xadgudubtay heshiisyadii ugu dambeeyay. Maxaa yeelay Hindiya oo laga mamnuucay barnaamijyada taleefoonka. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha tiknoolajiyadda ee dalka Hindiya ayaa lagu shaaciyay in la joojiyay isticmaalka barnaamijyadaas maadaama ay ku lug leeyihiin falal ka dhan ah madax-bannaanida Hindiya. Sababta loo qaatay go'aankaas ayaa sidoo kale lagu sheegay difaacidda waddanka iyo ilaalinta kala dambeynta shacabka. War-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu yidhi tallaabadan waxay dan u tahay malaayiin Hindi oo internetka ku isticmaala taleefanadooda. Go'aankan waxaa looga goleeyahay xoojinta dhaqanka Hindiya iyo madax-bannaanida ay Hindiya u leedahay internetka. Waxay wasaaraddu sheegtay in heshay cabashooyin muujinayay in barnaamijyadaas qaarkood lagu xaday xogo ay shakhsiyaad leeyihiin oo ugu jirtay taleefanada gacanta iyo kombiyuutarro. Xogta ayaa kadib loo diray meelo ka baxsan Hindiya. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka, ilaa hadda waxay Hindiya mamnuucday 224 barnaamij. Bishii Juun ee sanadkan, dowladda Hindiya waxay xayiraad saartay 59 app oo lala xidhiidha Shiinaha. Waxaa ka mid ahaa barnaamijka ay bulshada sida aadka u isticmaalaan ee TikTok. Go'aankaas lagu mamnuucay 59 barnaamijyada Shiinaha laga leeyahay waxaa la qaatay maalmo yar kadib markii uu isku dhaca ciidanka Hindiya iyo Shiinaha ku dhex maray harada Galfan 15kii bishii Juun. Markaas kadibna dowladda Hindiya waxay haddana xayirtay 47 barnaamij oo kale. Sidaas waxay isku darka barnaamijyadan ilaa imika laga mamnuucay ku noqonayaan 224 barnaamij. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Like saar muuqaalka dadka heshay.